دستوركي شرعيقا دينتين موافقا دولتها أفريقيا كقدواني دادة سومالي الله xafladda daahfurka barnaamijka fariinta dastuurka iyo adeega xog iyo xidhiidh ee wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ayaa lagu qabtay hotel Mansour ee magaalada Hargeysa waxaana ibafurkeeda ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland xubno ka tirsan golaha wasiirada marti sharaf iyo mudan ugu horreynna waxaa halkaasi ka hadlay Jamaal Cabdi Muuse agaasimaha guud ee wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka ee Somaliland oo ugu horreyn faahfaahiyay ujeedada xafladani walaba xafladood oo isa saaran waa barnaamijka fariinta dastuurka iyo mashruuca adeega xog iyo xidhiidh ama Web Portal Application System Project walaba xafladood laba barnaamij oo kala yeelan laba xafladood oo waaweyn laakiin tashiilka kharashka xafladaha ku baxay darteed aan u mataanaynay oo ka dhignay hal xaflad si loo ilaaliyo kharashka ku baxay xafladaha wasaaradda geesta kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay Marwe Adna Aadan Ismaaciil Jaamac Muuse Jaamac gudoomiyaha xarunta dhaqanka ee Hargeysa oo iyaguna si isku mid ah u tilmaamay faa'iidada dastuurka iyo sida ay u mudan tahay in bulshadu ay fahanto marwe inuu mudanayaa dastuurku waa xiriiriyaha waa xabagta waa simirka dowladnimadeena isku haysa dastuurku wuxuu muujinayaa wuxuu difaacaa wuxuu tilmaamayaa xaqa muwaadinku leeyahay kan lagu leeyahay xaqa madaxdu leedahay iyo tan lagu leeyahay hogaamiyaha maxaa lagu leeyahay kan la hogaaminayo maxaa xilka saaran waa maxay waa wax ina kala haga waa waxa nidaamkan quruxda badan ee aynu ku dhaqannay ee aynu ku noolahay waa waxa inoo hagaajiyo weeyaan ixtiraamkiisa iyo ku dhaqankiisu waa waxa ina kala haga waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa wasaaraddan waliba wasiirka hadda uu jooga oo maamulaya oo wado shaqadii qiimaha badleen ee labadii sano saddexdii sano la qabtay in meel kasta uu dastuurku gaadhay oo waraaqahan la inoo daabacay gacanteena ku haynaa guryaheena ku noqonayaan maaha oo kaliya intan xafladaha ku arkayne goobaha jaamacadaha goobaha ardayda goobaha waxbarashada hoose goobaha bulshada maxalliga ah ay ku qabato isugu shirto inuu gaadhay waa wax aad iyo aad u qiimo badan oo aan aad ugu farxay uguna mahad celinayo doonayana inaan ku ammaano wasaaraddan iyo howlwadeenadeeda wasiirka hogaaminayo waxaa iyaguna madashaasi ka hadlay Maxamed Xasan Cali Waji agaasimaha waaxda TV-ga qaranka agaasima ku-xigeenka waaxda idaacadaha Maxamed Saciid Maxamed oo iyaguna dhinacooda tilmaamay sida ay wasaaradda warfaafintu ay guntiga ugu xidhatay baahinta barnaamijkani waan xustaa waan jecelahay waan ku fahmaa weliba waan ku dhaataa waayo xaqaygii baa ku yaalla oo xuquuqdii ubadkayga ku yaalla oo xuquuqdii dadku ugu lahaaba ku yaallay waajibaadkaygiiba marka inaan ku kalsoonado wey arrintan dastuurka barashadeeda ee barnaamijyada uu ka baahinay idaacadda iyo TV-gaba waxaa sababteeda lahaa wasiirka wasaaradda dastuurka iyo xidhiidhka golayaasha kadib markii uu noogu yeeray xafiiskiisa aniga iyo Maxamed Xasan Cali Waji oo warbaahintii qaranka waxa uu naga codsaday in dastuurka dadkeenu aanay aad quraanka u akhrisanin 130 qodob oo dastuurku ka kooban yahay ayaanu raadioga iyo telefishinkaba maalintii 4 jeer habeenii maalin ama 4 jeer walba ka sii dayn jirnay waxaa iyaguna madashaasi ka ballan qaaday mas'uuliyiin ku hadlayay afka warbaahinta madaxa bannaan gaar ahaan telefishinada Sahan iyo Home Cable oo sheegay in si tabarucaad ay u baahin doonaan barnaamijka barashada dastuurka ee Somaliland anigoo Sahan ka socda oo gudoomiyaha Sahan iyo ownerkiiba ah waxaan halkan ka ballan qaadaya wasiirkan oo uga ballan qaaday haday 10 sano noqonayso haday 100 sano noqonaysaba in dastuurka free aan ku sii daynayno waxaan si mutadawacnimo aan telefishinkayga uga baahin doonaa ee dastuurka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland waxaan u yeeli doonaa xilli mucayyana oo shacabka reer Somaliland ay dastuurka ku daawadaan
dhankooda waxaa iyaguna madashaasi ka hadlay agaasimaha barnaamijka shaqo qaran maxamed xuseen cismaan mu'adinka iyo guddoomiyaha komishinka maamul wanaagga iyo la dagaalanka musuqmaasuqa dayb aadan xaaji cali oo iftiimiyey sida uu bulshada ugu garsoorayo dastuurku. dastuurkanu waa dastuurka marka la qiimeeyo dastuurada ugu wanaagsan kuwa adduunyada wuxuu koobayaa dhaqankeenna waxa u sala shareecada waxa ku salaysan yahay suuqa xorta dhinaca dhaqaalaha markay noqoto waxa ku salaysan yahay mabda'a wada tashiga waxa ku salaysan yahay nidaamka xisaabta badan marka waxa soo dhamay waa mabaadi'da asaasiga wuxuu koobayaa xuquuqaha muwaadinka iyo waajibaadka saaran waxa filayaa xeerarka ka dhashay dastuurka oo xeerkan komishinka maamulwanaagga golaado xeer number 8 iyo xeerka la dagaalanka musuqmaasuqa golaado xeer number 8 labadooda leeyihiin xeerarka ka dhashay dastuurka marka dhowr iyo 80 xeer ee ka dhashay dastuurka waa waxa la yiraahdo waxba qiyaxayda ay ka mid yihiin oo ku dhex jira xeerarkeena waxyaalaha dhiman ee ay tahay markaa in dastuurka dadku qofka tabiya wuxuu ka dhexeeyaa dastuurka qodob ka mid ah wasiirada wasaaradaha arrimaha bulshada Hinda Jaamac Xirsi Gaani beeraha Axmed Muumin Seed oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay daafurka barnaamijkani marka wasaaradda runtii aad baan ugu mahad celinayaa waxaan qirayaa inay gaarsiiyeen meel aanay weligeed gaadhin ummadda reer Somaliland goob kasta oo ay joogaan qofka aan xitaa wada aqoonin wax buu ka yaqaanaa wuxuu oranayaa waxaan u malaynayaa waxa dastuurku ma ogola ama waxa dastuurka sheegay wasaaraddu saddex sano ay jirtay tallaabooyin horumarka ay qaaday oo inta ugu horeeyo in la baro dastuurka shacabka reer Somaliland waajibku intuu ugu yahay kuya iyo kuwiiba inay barano dastuurka qaranka oo koob yahay qof markuu barto waranayo maxaa kugu waajiba oo waddankaagu adiga xaq ugu leeyahay maxaa kugu waajiba qofka madaxda ee muwaadinka ee Somaliland oo xaq adiga kugu leeyahay maxaa lagu xaq u leeyahay marartii waa soo dhaweynayaa dhinaciisa waxaa isna halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Maxamed Xaaji Aadan Cilmi oo ka warramay marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray dastuurku mudane madaxweyne ku xigeen si loo hormariyo wax kasta oo la tijaabiyo waxa noo soo baxday qodob waliba 130 qodob hal daqiiqo ayuu markii hore soconayay mana suurtagal ahayn in qodob walba qodobada xeerarka ka farcama waqti loo helo waxa noo suurta gashay mudane madaxweyne ku xigeen iyo mudanayaal in garyaqaanadii waxa weeyaan Somaliland imtixaanka aynu ka qaadnay ugu qaalisanaa oo khadar iminka halkan uu ka fadhiyo iyo Maxamed Saciid iyo intii kale la shaqeynaysay qodobkiiba 15 daqiiqo maanta daafurkan aynu furay la daawan doono oo laga dhargi doono qodobka iyo wixii ka farcamaba kaasoo si toos ah uga bixi doona TV-ga qaranka iyo idaacadda raadiyo Hargeysa waxaan kaloo mudane madaxweyne hortaada uga mahad celinayaa dhammaanba guddoomiyeyaasha TV-yada gaarka loo leeyahay iska leh guddoomiyaha Sahan Hello iyo Farxaan guddoomiyaha Home Cable inay dhammaantoodba si mutadawacnimo ah ku ballan qaadeen inagoo og daqiiqadaha hawada la galo iyo airtime-ka qaaliga ah ee qiimihiisa aynu ognahay inay ku tabarucaan dastuurka inay waqti free siiyaan madaxweyne taana aad baan ugu mahad celinaya xog iyo xidhiidh runtii waa program aad iyo aad wax yar baa laynaga tusay dhowr qaybood buu kala baxaa mudane madaxweyne ku xigeen sidaynu ognahay xeerarka aynu leenahay waxa weeyaan waxay u kala baxaan dhowr qaybood xeerar waxa weeye ansaxay oo madaxweynuhu saxeexay oo garyaqaanku faafiyey oo dhaqan galay iyo xeerar fara badan oo processyo kala duwan ku jira sidaynu u kala ogaano waxaynu u samaynay mareeg lagu xafido oo waxa weeyaan lagu kaydiyo oo mid walba gareedka iyo heerka uu joogo aynu halkiisa kula socono oo markaa kii u baahan inuu priority leeyahay bulshadu maanta u baahan tahay farta lagu fiiqi karo oo aynu odhan karno xeerkaasi waxa weeyaan maanta loo baahan yahay inuu dhaqan galo waxaanu kaloo helaynaa
in xeerarka qabyada ah ama maxaa dhahay qabyatirka u baahan iyagana si aynu inuu samayno. cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan oo gebagabadii isaguna halkaasi ka hadlay ayaa bogaadiyey tacabka badan ee wasaaradda dastuurka iyo xidhiidhka golayaasha somalilan ay gelisay sidii loo baahin lahaa barnaamijkani dastuurka. dastuurku runtii waxa weeyaan kow waa ilaaliyaha qaranka, waa waxa ummaddu kala socotay ku heshiisay, waa daryeelaha qaranka, waa ka wax daryeelaya ee habeynaya hagaya nolosha bulshada reer somaliland. ammaantiisii iyo wanaaggiisii waa soo dhamayseen. waxaan leeyahay haddaynaan macna farinta wanaaggiisa wanaagsanaan waxaan u baahanahay ummaddeena dhammaanteed gaar ahaan saddexda hay-adood ee qaranka nin kooban yahay, hadday tahay fulinta, hadday tahay xeerdejinta iyo hadday tahay garsoorka ee intuma qaranka kitaabka gacanta u saara inuu dhan walba ilaaliyaa loo baahan. haddaan isagii la ilaalin qiimaha iyo qiimuhu yeelanayahay ma jirto. ugu dambayntii waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey xubno ka mid ah ka qayb qaatayaashii hirgelinta barnaamijkani.